madaxweynaha Somaliland Axmed Maxamed Maxamuud Sirayo ayaa saaka si rasmi ah xadhiga uga jaray dhabbada diyaaraduhu ka duulaan ee Cigaal International Airport oo dib u habeyn iyo dayactir laga sameeyay taasi oo dib u habeyntiisa socotay muddo sanad ah waxaana dhismaha wadadan gacan ka geystay dawladda Kuwait munaasabada xadhiga lagaga jaray gagida diyaaradaha ee Cigaal waxa ka soo qayb galay madaxweynaha Somaliland Axmed Maxamed Maxamuud Sirayo golaha wasiirada gudoomiyaasha labada gole ee wakiilada iyo guurtida siyaasiyiin aqoon-yahano iyo dadweyne aad u tiro badan waxaana halkaasi ka hadlay wasiirka duulista hawada Maxamuud Xaashi Cabdi wasiirka warfaafinta iyo wacyigelinta iyo dhaqanka Abdullaahi Maxamed Daahir Cukuse wasiirka arrimaha gudaha Somaliland Ali Maxamed Waran Cad iyo wasiirka arrimaha dibadda Maxamed Biixi Yunis waxaanay ka warameen ahmiyadda ay u leeyahay dalka garoonka Cigaal International Airport waxaanay ka warameen waxqabadka xukuumadda Somaliland ay ku tallaabsatay muddada 3 sano ah ee xilka haysay gudoomiyaasha golaha wakiilada Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Cirro guurtida Saleeman Maxamuud Aadan oo iyaguna goobtaasi ka hadlay ayaa iyaguna si weyn u soo dhaweeyay dhabbada diyaaradaha ee Cigaal ee dayactirka iyo dib u habeynta lagu sameeyay gabagabadii madaxweynaha Somaliland Axmed Maxamed Maxamuud Sirayo oo halkaasi khudbad ka jeediyay ayaa si weyn ugu mahadnaqay dalka Kuwait oo isagu gacan weyn ka geystay sameynta garoonka Cigaal aniga iyo martida halka joogtay qaranka caam ahaanba inaan halka ka dhageysano kana marxaati kacno waxyaabaha aad u weyn ee qiimaha leh ee maanta airportka qaranka Somaliland Cigaal Airport magaalo madaxda qaranka u soo kordhay iyo waxa laga qabtay iyo dadka qabtay inta waxaan jecelahay inaan mahadnaq aad iyo aad ballaaran u soo jeediyo wax weyn oo lagu farxo oo lagu faano oo madaxan iyo qaran ku faana halka laga muuqdo halka waxa laga sheegay oo la soo tiriyay waxyaabaha faraha badan ay dawladda Soomaaliland qabatay muddada jirtay kuwii koreeyna qabtay kuwii ka dambeeyay intii aan ka dambeynaa meesha joogayna waxa ku darra qabanay insha Allah ugu dambeeymayaan waxaan qabanno waxaas intaas aanu ka sii qorin doonaa ka sii badan doonaa waxaanu dawladda qaranka u nahay oo ummaddu xilka noogu dhibatay waxaan ugu dhibatay weynaan maalin wax ku soo qorino weynaan ummadda horumarino weynaan ummadda horu kicino dhinac kasta ay tahay iyo waji kasta ay leedahayba iyo wax kasta nolosha dadweynaha saameynaya waxaana halkaasi shahaadooyin lagu guddoonsiiyay dadkii iyagu gacanta ka geystay muddadii ay socotay hawsha dayactirka iyo dib u habeynta garoonka caalamiga ee Cigaal Mukhtar Ismaaciil Cali Somsa TV Hargeysa.